أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم. hadda ka hor ayaa 3 nin oo xawaalad ka wada shaqeeyo waxay go'aansadeen inay isku sir qarsadaan oo ay dhibaatada haysato ka wada hadlaan. ninkii koowaad baa bilaabay sheekada wuxuuna yiri aniga dhibkeyga waa lacag, haddii aan arko lacag meel taalo ma badhaafi karo inaan xad mooyaane, xitaa lacagta xawaalada taalo marmar waan xadaa, ee saaxiibayaalow igu duceeya inaan xaditaanka joojiyo. ninkii labaad baa isagana sheegay dhibkiisa wuxuuna dhahay aniga dhibkeyga waa dumar, haddaan arko qof dumar ah ma badhaafi karo inaan shukaansado mooyee, dhammaan hablaha xaafadan degan waan wada shukaansaday, xaaskaygana ma oga, ii duceeya inaan dumarka iska dhaafo. ninkii saddexaad meeshii laga sugayay inuu dhibka haysto u sheego asxaabtiisa wuxuuba bilaabay oohin ilaa laga aamusin waayey. markay weydiiyeen waxa ku dhacayna wuuba kasii daray oohintii. xoogaa kadib wuxuu dhahay aniga dhibkeyga waxa waaye wixii la ii sheego ma baqarin karo inaan sheego mooye. hadda markaan meeshan ka wada tagno dhammaan dadka magaalada degan way maqlayaan waxaad labadiina ii sheegteen, please igu duceeya inaan xarifnimada iska dhaafo. nin saqraansan ayaa wuxuu arkay meel lagu xunsan yahay. wuxuu yiri meesha maxaa ka dhacay? waxaa loogu jawaabay nin ayaa xabad madax kaga dhacday waana dhintay. intuu indhaha isku qabtay ayuu wuxuu yiri nasiib uu leeyahay haddayna wadnaha kaga dhicin. walaal waxba ha iga xaasidinaya bartaar dhexda ku dhufo deetana subscribe gare aad baad ugu mahadsantahay daawashadaada. haddii aad daawasho kala u baahantina labada kale ku dhufo labada fayl.